tusaale markab ama doon oo ku socdaalaysa biyaha Soomaaliya ama haddii xalay muwaadin ama shisheeye waxay la kulantay khatar hadba noocay doonta ahaato. Tusaale markabka soo socdo wuxuu ku dhici karaa jamal ama waxaa ku kici karo hirarka ama badiyaa ku kici karto. Marka inta hirarkaas ay ku kacaan waxaa laga yaabaa in ay ka qaldamaan dhammaan systemkii wixii saarnaa ee hawada ka baxaan. Tusaale laba markab ama laba doon isku dhaceen ama doon iyo markab isku dhacay ama doon waxay ku dhacday jamal ama matoorkii ka ciladoobay isla markii inay ka sameeyaan xiriir ayagoo la xiriiraya xarunta badbaadada iyo samata bixinta dhibaatooyinka ka dhaca biyaha badda Soomaaliya. xaruntaas oo sameyn doonto gurmad degdeg ah. marka aad ugu faraxsanahay dawladda inay soo kordhiso nidaamkaas. shaqada shanaad oo ay qabato wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda, ilaalinta deegaanka badda ayadoo ka hortagayso maraakiibta iyo doomaha wasaqeynaya biyaha badda haddii ay ku daadi lahaayeen saliid, oolyo, gaas, kiimiko, waxyaabahaas ayagoo ku shubaya. sidoo kaleeto in ay ka hortagto ama ay ilaaliso shilalka ka dhaco biyaha badda haddii isku dhici lahayn laba doon ama laba markab ama doon iyo markab ama xitaa markab naftirkiis inuu ku dhaco jamal. waxaas oo dhan in ay ilaaliso because badda mararka qaar waxaa ka dhaco shilal laakiin Soomaalida badankooda ma og. kaliya waxay u maleeyaan shilalka inay ku egyihiin beriga laba gaari isku dhacday ama laba mooto isku dhacday oo kale. shilalka intaas kuma koobno, gudaha badda xitaa waxaa ka dhaco shilal haddii isku dhici lahayn laba markab ama laba doon ama doon iyo markab. because xitaa waxaa jiro barnaamij oo leerar maraakiibta waxaa jiraan ama doomaha waaweyn waxaa ku xiran laba leer, mid cagaar ah iyo mid guduud ah ayagoo weliba oo kala xiran bidix iyo midig. laba leer ku kala xiran. tusaale markab hal meel wada socotiin adaa ku horeysad ama asaa kaa horeeya oo kale. marka asaga tusaale tartiib u soconaya adeena xoogaa u socotaa hal qadaana saarantiin ama hal leen. marka leenka ugu bixi kartid leerka oo cagaarka ma ka maray ama leerka guduudka ka maray dhinaca ka maraysid ayadana waxaa waaye baashi gooni leedahay. tusaale waa isku hor imaateen adiga meesha u socotay asaga ka imaada asagana meesha ka soo socotay waa isku hor imaateen tusaale. marka wadadana waxaa waaye hal wada wada saarantiin oo ma ka wada degi kartiin. marka waxaa jiro nidaam oo raadeer loo yaqaan. raadeerkaas waxaa lagu arkaa markab walba ku rakaban yahay, doomaha qaarna ku rakaban yihiin. raadeerkaas wuxuu ku sahlayaa dhammaan wixii hareerahaada kaaga dhow hadduu ahaa lahaa markab ama doon waa ka arkay raadeerkaas. doomaha iyo maraakiibta waxay isku arkaan raadeerka markuu saas u wareegsan yahay oo kale waxaa ku programsan cabir oo miles ah, mile loo yaqaano. mile hadda si fiican idinku faahfaahiyo hadda berigi marka la joogo kale waxaa la isticmaalaa cabir oo kilometer oo kale. qafaa wuxuu u jiraa tusaale intaas oo kilometer oo kale. diyaaradaha ayagana waxay isticmaalaan feet, cabir oo feet ah. baddana marka la joogo isla cabirkaas oo kale laakiin magaciisa wuxuu isku bedelaa mile. marka tusaale markaba wuxuu kuu soo jiraa 5 mayl oo kale adiga raadeerka ka arkay. marka asagoo kuu soo dhawaana xiriir waa la sameyn kartaa markabkaas raadiyaha saaran iyo kan raadiyahiisa saaran maadaama isku dhib yihiin nidaam noocaas nagu jira oo maraakiibta iskula xiriiraan ayagoo isdhahay midig maa maray ama bidixaa maray oo isku soo wajahanahay markabkaas awtaa waa la iska warbixinaa midkaan midig oo qabsanaa kana bidix oo qabsanaa. marka labada dhinac saas u kala marayaan saas u kala badbaadayaan. sidoo kaleeto shaqada lixaad oo ay qabato wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda waxay tahay hagidda iyo calaamadeynta badda. dabcan badda waa la calaamadeeyaa. marka waxaa isweydiinaysaa qaab noocee loo calaamadeeyaa. waxaa lagu calaamadeynayaa lighthouses. waxaa jiro leerar oo loo yaqaano lighthouses. marka wasaaradda waxay rakabaysaa leerarkaas si ay ugu hagto maraakiibta iyo doomaha oo isticmaalo biyahaas Soomaaliya. calaamadaha hagidda maraakiibta navigation aids.
shaqada toddobaad oo ay qabato wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda. Maamulka ganacsiga badda. Dabcan dekedaha badanaa waxbaa laga soo dejiyaa, waxna waa laga dhoofiyaa. Marka wasaaradda waa inay dardargelisaa. Marka wasaaradda waxay dardargelinaysaa oo dedejinaysaa shaqooyinkaas ama ganacsigaas. Sidoo kaleeto inay ka hortagto dib u dhaca ku imaanayo dekeda. Because shaqadeeda waxaa looga baahan yahay dekeda in ay xooli ku socoto. Haddii wax laga soo dejinayo ama haddii wax laga dhoofinayo labadaba. Shaqada sideedaad oo ay qabato wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda. Horumarinta kaabayaasha qalabka dekedaha. In wasaaradda ay horumariso dhammaan qalabka yaalo dekeda maamulkooda, in casriyeyso hadba wixii markaas oo cusub oo soo baxo inay kusoo kordhiso dekeda. Sidoo kaleeto wiishashka yaali jiray oo kale in ay beddesho qorsheynta, horumarinta wax walba oo markaas ka qayb qaadan karo kaabaha. In la casriyeeyo dekedihii hore oo laga dhigo kuwo new ah oo caalamka la jaan qaadi karo. Tusaale, dekeda haddii ay yareedo kaleeto in cabir lagu daro oo la weyneeyo. Sidoo kaleeto dhammaan waxyaabaha asaasiga ah oo looga baahan yahay deked walba in laga heli karo in ay kusoo kordhiyaan. Sidoo kaleeto shaqaalaha dekeda ka shaqeeyo in mar walba lagu dhiirigeliyo, trainino la siiyo shaqooyinka ay qabanayaan sida ay ku qaban lahaayeen, ay ku dardargeli lahaayeen. Shaqada sagaalaad waxay tahay tababaridda shaqaale cusub ama kabtano ama badmaaxin. In la sameeyo shaqaale cusub oo hadhow bedeli karo kuwa dekeda hadda ka shaqeeyo retire inay noqdaan. Retire dad oo howlgab ah ama duqoowe haddii ay noqdaan oo kale, in la heli karo dhalinyaro firfircoon oo shaqadaas bedeli karo. Haddii ahaa lahayd wadada maraakiibta, doomaha, sidoo kaleeto wiishashka qaybahooda kala duwan, kuwa maraakiibta ka soo dejinayaan qalabka ay sidaan. Sidoo kaleeto kuwa oo data collection ka sameynayo, kuwa naqshadda, kuwa booliiska, guud ahaan in ay tababaraan wasaaradda. Sidoo kaleeto shaqaalaha in la siiyo shahaadooyin tayo sare leh oo caddeynayo xirfadaha ay leeyihiin. Iyo sidoo kaleeto guud ahaan waraaqadaha asaasiga looga baahan yahay qof walba oo ka shaqeynayo gudaha badda in uu haysto, sida buugga seamanka oo kaleeto, seaman buugga, sidoo kaleeto waraaqadaha jantiga, waxaas oo dhan inuu haysto. Shaqada tobanaad ama shaqada ugu dambeysa oo kusoo koobaya barnaamijkan oo ah wasaaradda inay sameyso iskaashi caalami ah iyadoo la sameynayso kambaniyada iyo shirkadaha kaleeto guud ahaan ee badaha leh. Tusaale, IMO, International Marine Organization. Sidoo kaleeto inay gasho heshiisyo badeed oo caalami ah oo lagu dhisaayo, lagu horumarinayo guud ahaan dekedaha dalka iyo guud ahaan waddooyinka badda. Navigation routes ama navigation chart. Marka asxaabi muuqaalkeena maanta halkaas aan kusoo gabagabeynaynaa oo ah qaar ka mid ah shaqooyinka ay qabato wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda. Weli halkaas kuma eko shaqooyinka ay qabato wasaaraddan. Intaan hadda idin sheegay ka badan ay qabataa, laakiin intaan sambal ahaan usoo qaadan tusaale. Sidoo kaleeto waa sii wadi doonaa imtixaanahan, waxaa idin soo gudbin doonaa qeybaha kaleeto. Haatan waxaa idin leeyahay, waxaa filayaa inaad wax badan ka fahanteen shaqooyinka laga qabto gudaha badda, gaar ahaan labada wasaaradood hadda aan ka hadlay, midda kalluumeysiga iyo midda dekedaha. Intaas kadib waxaa idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo, kulanti dambe oo xiiso leh.